بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موضوعنا maanta wuxuu ku saabsan yahay madax xanuunka, noocyada loo qayb madax xanuunka iyo kuwa ugu daran, calaamadaha loo garto iyo daawooyinka ku habboon ee madax xanuunka loo isticmaalo ee laga iibsan karo suuqa ama farmasiga ayadoo aan dhakhtar ku qorin. Xanuunada ku dhaca madaxa ayaa ka mid ah xanuunada ugu daran ee ku dhaca habdhiska neerfaha ama dareemayaasha. qiyaas ahaan ku dhawaad kala bar dadka qaangaarka ah waxaa la qiyaasay in madax xanuun uu ku dhaco ugu yaraan sanadkiiba mar. Xanuunada madaxa waxaa loo gartaa madax xanuun soo noqnoqshada madax xanuunkaas ayaa kuwa la xiriiro culayska shakhsi ahaaneed ee soo food saara qofka, kuwa bulsho, naafanimada, tayada nolosha oo liidata iyo dhaqaale yari ku timaada qofka. Adduunka oo dhan dadka qaba madax xanuunka tira aad u yar ayaa si ku habboon iskaga baara isla markaana tahay goobaha caafimaadka. Madax xanuunka ayaa noqday xanuun la dhayalsaday, la dayacay, la iska indha tiray si ku habboon aysan ula tacaalin dadka qaba xanuunkan. Madax xanuunka waa astaamo xanuun badan oo ka mid ah tiro yar oo madax xanuunka aasaasiga ah, kuwaas oo kala ah madax xanuunka sanqaroorka, madax xanuunka goonjabka, madax xanuunka dhafoorka iyo madax xanuunka wadajira. Haddaba noocyada madax xanuunka waxaan u qaymin doonaa ilaa iyo 4 nooc. Nooca koowaad waxaa la dhahaa madax xanuunka sanqaroorka. Madax xanuunka sanqaroorka wuxuu sababaa xanuun madaxa iyo wajiga ah. Xanuunka waxaa keena barar ka jira marinada sanqaroorka ee ku yaala daamanka, sanka iyo indhaha. Xanuunku wuxuu ugu sii daran yahay marka hore loo foorarsado ama marka ugu horeysa ee subaxii la kaco. Waxaa laga yaabaa in sanka dareere ka socdo ama cunaha uu ku xanuuno. Nooca labaad waxaa loo yaqaanaa madax xanuunka dhafoorka iyo qadaadka. Madax xanuunkan waxaa keena kacsanaanta muruqa madaxa iyo qoorta ku jira. Calaamadaha madax xanuunka dhafoorka iyo qadaadka waxaa ka mid ah xanuunku garaacayo oo joogto ah oo u badan indhaha dushooda iyo dhinacyada dambe ee madaxa. Xanuunkan waxaa laga yaabaa inuu ku faafo madaxa oo dhan ama uu u gudbo qoorta ilaa iyo garbaha. Noocan saddexaad waa nooca ugu daran waxaana loo yaqaanaa madax xanuunka goonjabka. Madax xanuunkan aadka u daran ee goonjabka waxaa keena bararka marinada dhiigga ee maskaxda ku jira. Madax xanuunka aadka u daran ee goonjabka wuxuu keenaa xanuun daran, isbeddel aragga ku yimaada iyo labolabo ama matag. Madax xanuunka goonjabka waxaa laga yaabaa inuu ka bilowdo isha dhinacyadeeda ama dhafoorada, wuxuuna u badan yahay hal dhinac oo madaxa ah, balse waxaa laga yaabaa inuu ku faafo madaxa oo dhan. Nooca afraad waxaa loo yaqaanaa madax xanuunka wadajira. Wuxuu keenaa madax xanuun aad u daran. Madax xanuunkan wuxuu u dhacaa koox ama qaybo. Waxay dhacaan hal ama in ka badan maalintii muddo toddobaadyo ah ama bilo ah. Ugu dambeyntiina madax xanuunyadan waxay u joogsadaan si lama filaan ah. Muuqaalkan koowaad ee madax xanuunka halkan ayuu ka yahay. Muuqaalka xiga waxaan ka hadli doonaa sidii loola tacaalo ama loo daryeelo madax xanuunka iyo daawooyinka ku habboon oo aad u isticmaali karto madax xanuunka oo aad ka iibsan karto suuqa iyadoo dhakhtar aysan ku qorin. Sidoo kale waxaan ku soo qaadan doonaa muuqaalkaas calaamadaha ugu khatarta badan madax xanuunka oo ay tahay inaad si degdeg ah ula xiriirto dhakhtarkaaga gaarka ah ama goob caafimaad. Haddaba waxaan shaki ku jirin intayna qaangaarka ah in ugu yaraan hal mar uu nagu dhacay madax xanuun. Haddaba ma noo sheegi kartaa nooca uu ahaa madax xanuun kugu dhacay? Mase jirtaa madax xanuun aad la ildarneed muddo dheer? Mase noo sheegi kartaa daawooyin ku habboon aad isticmaashay haddii ay jiraan? Mahadsanid.